أيا نين أوغانديس وغاندا ولا شيء بأي السلام عليكم شيخ عبد الرشيد لي قصة معك قصة أديك أكو صاحب سنبان هيا سوفرش وحويري بس بان ودي جيرو أوغاندا مركان جوغي حتى هل هرقيسو كشغشتا ومعلم محاد معلم كنت هاي بان إنجليز كان دادك براوي لأن قرآن كان برتابول هرقيسو وقرآن كان لغو شوهيدا لغا برتاهي إنجليز كان هو الذي واتقانا وان الذي بريان marka wuxuu yiri macallin Ingiriis baan ahay markaan joogay buu yiri wadankaygii bas baan wadi jiray bas marka USB Quraan iigu jiro oo baabuurka aan gashaday baan iska shiday jiray buu yiri anigu muslim baan ahay de Quraankaas iska dhageysanaya maalin Quraanka ada akhrinay buu laakiin kuma aqoonin magacaagana ma garanaynin ayaa wuxuu yiri maalin baa mid waxa ila soo foolay nin wasiir hore ahaan jiray madaxdii hore ahaan jiray ay baa ila soo furin markaan meeshii aan tagnay aan gaadnay ayuu ii yimid oo wuxuu yiri niyow heestan macaan maxay ahayd markaasaan ku yiri hees ma ahe waa qur'aan kalaamullaahi way qur'aankii muslimiinta ma kana ha wada ninkan akhrinay maxaa la yiraahdaa magaciis markaasaan igu yiri ma aqaano magaciisa garan maayo laakiin wuxuu akhrinay waa qur'aanka markaasuu yiri buu yiri anigu waxaan u malaynayaa ninkan magaciisa Suleymaan baa la yiraahdaa maxaad ku tiri baan ilaa wuxuu yiri maanta oo dhan Suleymaan tu ku celcelinayay إلا سورة النمل بعد آخرين يسيبوا يريو وورث سليمان داود ولقد آتينا داود وسليمان علما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان وأسلمت مع سليمان كما قول عليني حوير نك سليمان بن ليلى ما هذا بيرا سليمان قرآن كي كجرتايو قرآن كي كمل أظن نك وحويري ولقي وحان يقول دعين با يقول دعيو قلبي جاي ويسبدلي هذا الكلام ربنا نفهمه وحرر وهذا قرآن كلام الله هذا نكي وحويري ماشي سوى متأثر ويقتلي ما كذب وصون غضو وحويري وان إسلام يا إسلام كان قليل مسلم بنغضي بورنكي أنا وين راديو وحرر وينك كان كان قرآن كان أخذنا يواقوه واللي شيء علي يقول عبد الرشيد الصوفي صومالي ويبلغ يقول marka weligay waa ku raadinaya alxamdulillah inaan ku helay sheekadaasna waan ku hayaa marka alxamdulillah wa bidalika fadlullah quraanka aan akhrinay insha Allah niyada aan niyeysanay in ilaahay noo aqbalo dad aaban muslimiin ahay ay ku islaamaan